ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب إلا لك لبحو مؤمنين أنها ليسكو دين مايو والإسلبايا markii la isdhibo qaar dad kamid way adkeysanayaan qaarna ma adkeysan karayaan kuwa adkeysan way maxaa ku dhacay ay u dhaceen dhowr arrimood waxa kaga dhacay khalal wuxuu ka galay ama waxaan fiicnayn wax mabaadi ama qiyam wax la yiraahdo qofku waxa uu rumaysan yahay ayaa ku yaraaday oo waxa iska dhax galay qofka inuu mabda lahaado oo mabdigiisa uu dhinto iyo inuu maslaxadiisa daba socdo labadaas keebaa horeeya dadka oo wanaagsan oo ahlu khayrka ah masaalixda yar ee adduunyo waxay ka hormarinayaan oo ka qiimo badan mabaadiida iyo waxay rumaysan yihiin dadka qaarna wuxuu ku leeyahay war mabda maxaa iga galay markaas hadda Soomaalidan waxay noo soo sameeyeen gaar ahaan siyaasadda markii laga hadlayo waxay dheen mabda iyo akhlaaq iyo qiyam iyo balan la isku ogaa iyo wax la ilaal ma jirto ma waxay noo soo dhajiyeen la dhaho siyaasaddu dana joogta ay leedahay ma ogiye saaxiib joogta ama leh macnaheedu marka maxay tahay meeshii dantaadu ay ka gasho ilaahu may gaalnimo ka gashaday rabto waa ka dabagelay markaas waxaan siyaasaddu dana joogta ayay leedahay laakiin saaxiibtinimo joogta male quraankeena arintaas muxuu ka yiri quraanku wuxuu noo soo qaatay laba reer ayaa waxa jirtay heshiis la galayaa qola kale heshiis la galaysa waxay leeyahay heshiis aan nahay inaan heshiiskaas ahaanaan heshiis ku nahay qoladaas kuwa kamid ah labadii qabiil heshiiska galay mid kamid ah yaa waxay arkaysaa kuwa heshiiska hadda ay kula jirto kuwa uga nacfiroon oo danteeda ay ka helayso markaas waxay sameynayaan kuwii ay hore heshiiska ula ahaayeen heshiiskay uga baxayaan waxay leeyihiin naga raali ahaada heshiiskii waan idinka baxnay oo maxaad nooga baxayseen heshiiskii waxaan helnay kuwa oo idinka badan oo danta aan ka helayno ay ka badan tahay danta idinka aan idinka helayno taas fiir markuu akhlaaq ma taas maxay noqotay waa dad aan mabaadi lahayn quraanku muxuu arintaas ka yiri wala tattakhidhu aymanakum dakhalan baynakum heshiisyada aad gasheen iyo dhaaraha aad ku adkayseen khiyaano dhexdiina aad ku khiyaantaan ha ka dhigina oo sababta aad u yeelaysaan ay tahay an takuna ummatun hiya arba min ummatin inay ummadi ka badan tahay ummadda kale oo kolba meeshii badan ee nacfigu uu ku badan yahay intaan ku jira waa balantii aad ku jirtay mabda ahid aaway mabda iyo saaxiib joogta xagee lagu arkay meeshay maanta ka qoyan tahay halkaana maanta ayaan ahay mabda male marka taas maxay keenaysaa dadka aan muslimka ahayn markay arkaan dadka saa u dhaqmaaya inay dadka kala dhahaan war dadkan aan qiyam iyo akhlaaq bi ilaalinaynin ee hadba meeshii maanta ay ka qoyan tahay iska aadaya oo meel loogu soo hagaagaba aan lahayn war kuwani maxay ahayn diinta ay haystaan maxay tahay sabab waxay u noqonayaan dadka saas yeelaya dadku inay diinta ka istaagaan saas ilaahay wuxuu hada saas yeeshaan waxa dhacaysa fatazilla qadamun ba'da thubutiha wa tadhuqu as-su'a bima sadadtum an sabilillah يعني لغة أياسين بالرحنايا ودين تكجوك سنايا إذن كان عذاب أيال الدنسينايا صوابتنا أي تهي بما سددتم عن سبيل الله جيتك إلهي بادتك كعلسين آيدو مسو شيئين داد كان أردها هايان دين تيان لسوق قلين ما يندين أفكا ما يندين لكن دقن حمدو هذا هل كان يكبس نشتا هايدا مبدأ الآن تعيا وحين نقطين دين تي أي متلايين إنا يسو جيدان الليل ليلة هذا وركوان كل آميني كربا ما مركز هاييرنا مركز قفك مسلم كوحال ربا مبدأ إن لوجو سوهاجو هدي قال هالشيء لا قالوا إلى أيوة يكبحان لوجا ما بحو وإلى يحوري فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم أنت إلى لنا إذنكوا إلى ليا مرنا ينا نقول حقينا إن لا إذن كتوم إن إذا بلنت إلى لين قيم يا أخلاق يا لنا مركزات كقاركيس أو مصالح الكلية أي وحويين ومبادئ كتنازلايا هالكاس يكون عام حنسوق أنت صالح فرعون لمنك وترتمى ساحرين تعها مركز إيمانا يوم حيكفي كراين محاد نصينا يسا هدان موسى كعد كانوا أبال أين لنا لأجر حول من نصير يسا مركز وحكير نعم ها وإنكم إذا لمن المقربين حول إسكتنا في وحوري وزيران كوض دقايا هدان موسى ميل سارتان لمن المقربين كويسون لو أنا أيان ذيك دقايا هذا كان فكر كود محيي محي ربان إن أما حول الله سيو أما جعل الله سيو فرعون أكتيس مركز السحر أنت إسكو أدين يا وحوجا بعود دقائق السحر كيا مركز دارتين وحين كل دارنا فرعون كي عابدين مركز وحيده وقالوا بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون فرعون شرفتي سان كل دارنا وان أتكاني هالكاس يوجوتي لما حوجا ما يركن نبي موسى بوشي سيد أحد ماشي سحر كوسمايان وحي أي سمايان ودنا يوشي نبي موسى أيال القضاء أو عنتي
markay arkeen waxay ogaadeen nabi muuse arinta uu la soo shirtagay ma aha sixirkooda oo kala ah ee waa mucjizo ilaahay uu soo dhiibay oo tusinaysa awoodda ilaahay ul intii dhulka la dhiga mas noqonaysa way rumeeyeen nabi muuse waxay dhaheen waxaan rumaynaa aamanaa birabbil caalamiin rabbi muusa wa haaruun markay rumeeyeen fircoonkii haddii ay la gorgortamayeen ay lahayn xoolo ma nasiinaysaa muuna dhihin xoolaha idinka goosanaya xoolo idin siin maaye wuu hadiyo wuxuu ku yiri wuu goodiyey anoon idin fasixin miyaad iska rumaynaysaan muuse waxaan samaynayaa lugihiina iyo gacmihiina ayaan isdhaaf u goynayaa waana idin soo laalaadinayaa waadna arkaysaa ta idinku dhacda maxay yidhahdeen ugu jawaabeen laa dayra dhib male waan indilaya soomaa wax dhib oo ileeday ma jirto innaa ilaa rabbinaa munqalibuun ilaahay ayaan u tegaynaa xageedna geyna adiga qofka mogta intuu dilo meel cidlaa la aadi lahaa waxaa la yidhaha waan khasaarnay laakiin maxaad naga qaadadheen marka fiiri subaxda gelinkooda hore waxay ahaayeen dad maslaxadoon ah aina lanaa la ajran ayay joogeen xoolo ma nala siinaaya ayay joogeen haddana ayagoo laleeyahay lug iyo gacana isdhaaf la idiin goynayaa haddii kale ka soo noqdan waxaan aad rumayseen yaa waxay leeyihin haba ka yaabin lan nu'thiraka calaa maa jaa'ana min albayinaati waaladii fadaranaa faqdi maa anta qaadin inamaa taqdii hadihi alxayaata addunya inaa aamanaa birabbina liyaqfira lanaa khadaayaana maxaad naga qaadaysaa marka dadkaas maxay qaateen mabaadi'da ay rumaysan yihiin ayaa waxay ka hormariyeen dana iyo masaalix marka qofka muuminka waxaa laga rabaa inuu sidaas noqdo oo haddii loo goodiyo loo cagajugleeyo inuu yidhaahdo raalliga ahow mabda'ayga kuma doorsanaayo dana yarood isiinaysa waxaa kaloo dadka qaarkii ay kaga dhacaan khalal ama waxyaaba aan fiicnayn qofka madluumka in la garab istaago waa waajib yani madluumka waa in la garab istaago daalimkana waa in la diido la war daalimaa tahay naga joog taas dadka qaarkiis ma yeelaayaan oo waataan soo qaan tusaale xamza bin cabdilmutalib wuxuu ku soo islaamay abujahla nabiga caayay nabiguna muuna jawaabin gabaraa u sheegto waxay tihi nabiga waa la caayay asna muuna u jawaabin intuu qaansadiisii qaatay oo abujahl u tago madaxa ku dhuftay oo u daqray yaa wuxuu ku yidhi atasubuhu wa ana calaa diinihi anoo diintiisa ku jiraad caynaysaa miya hadda korra kumuuna jirin hadduu soo galay diinta maxaa ka keenay madluumku garab istaagayo macnaha dadnimadku wuxuu yahay qofka madluumka in la garab istaago oo hadda markii maalan aan ka hadlayno caalamulislaami waxyaabaha ka socda dad xukaam ah oo dadka dulminaaya oo dadka muslimiinta waxay xiraan iyo waxay dilaan iyo waxay xoolahooda la wareegaan ka dhigayaan markaan aan war qofkaasi waa madluum ee aan garab istaagno dada waxay ku dhahaan isku kooxaatiin miya war isku koox ma nihine waxa way madluumkan in la garab istaago waa waajib daalimkana waa in laga leexdo marka qiyam ayaa la rabaa qiyam akhlaaq ayaa la rabaa akhlaaqdu maxay keenaysaa laba qof oo midna uu gardaran yahay midna laga gardaran yahay yay tahay in la garab istaago yani midka madluumka waa in la yidhahdo waa madluum waa inaan garab istaagno nabigana wuxuu sal alla alay slam unsur akhaaka daaliman aw madluuman hadduu madluum yahayna waan garab istaagaynaa hadduu daalim yahayna kan daalimkaan qabanayna waxaan war joog daalimaa tahay saasaa gargaarku yahay waa qiyam iyo akhlaaq midda kale dadka qaarkii waxaa ku dhacay geesinimo ma leh daalimiinta ay ku dhahaan war naga joog daalimaa tahay ashajaacatu amaama daalim tusaale waxaan soo qaadan saxaabiga khubayb la dhihi jiray intay meel ku soo xireen ayay googoynaayeen markaasay ma ka noqonaysaa diintaada saan ma yeelaysaa markaasuu abyaad wuxuu tiri ah falastu ubaali xiina uqtalu musliman calaa ayi janbin kaana lilaahi masraci mar haddaan islaamnimo ku dhimanaayo dhinac kastoon u dhaco wax dhib oo ay leedahay ma jirto marka waa geesinimo jihaadka ugu fadli badanna waa kelimatu xaqin cinda suldaani jaa'ir iyo ugu dambays ah dadka muslimiinta waxaa laga rabaa inuusan khalal ka gelin xaggaynu u soconnaa taasoo kale waxaa leedaha wuduuxu lhadaf hadafku inuu kuu cad yahay hadafkaan u soconna wuxuu yahay nabi sulaymaan warqadiisii gabadhii balqiisa ahayd labadii kelime ee ugu qoray ayaa hadaf inoo ah oo ah allah tacluu calaya waatuunii muslimiin yani inaan dadka kale iska kibrinin diktaatoriyad kelitalisnimo anaa iri saan doonaa idinka yeel inaan la ogolaanin dadaa moogtay waxay ogolaadeen inay kuwa kelitalis ah ay u hoggaansamaan dadna way diideen waxay dhaheen ma kaa yeelayno maxay dadka khayrka badan shucuubta nool maxay xabsida ugu jiraan waxay un diideen nin baa hawadiisa wuxuu ku leeyahay saan aniga reeba la ii yeelyeela haddaad ii diidaan ama waa idin dilayaa ama waa idin xirayaa ama xoolihiinaan la wareegaya marka laba mid yaala idinku inaad inay daba socotaan iyo in la idin dilo waxay ka doorteen halna la dilo ma yeelayno allah tacluu calaya iyo waatuunii muslimiin way cadda gabadhii markii warqadda loo geeyey waxay tihi ninkan waan iska fiirinaynaaye ma xoolo ayuu rabaa oo xoolaan u dirnaa mise mabda'an uu soo jeediyey ee ah laba mid in la yeelo labadaas in la yeelo inaan la iskibrinin muslimnimana lala yimaado teebuu rabaa waxaan u dirayaa hadiyad bal wuxuu ku soo jawaabaan fiirinaynaa hadiyadii bay u dirtay markuu hadiyadii loo geeyey nabi sulaymaan wuxuu ku yidhi orod hadiyadan ma rabee arrintii aan ahayd waatuunii muslimiinadi hadafkaas wuu cad yahay sidaa ha soo yeelan hadday soo yeeli waayeen ciidan ayna tabar u lahayn ayaan u soo dirayaa halkii militariga gabadhaas ay xukumaysa ay lahaayeen
نحن أولو قوة وأولو بأس شديد النبي صلى الله عليه وسلم بل هدي واحترايان ولا أركي دوناي gabadhii markii loo soo noqdo ninkaas uu soo diiday hadiyadii waxay fahamtay waxa uu rabo inuu san ahayn lacag la siiyo iyo meelahan hadafkiisu inuu cad yahay oo ah Allah ta'ala alayya wa atuni muslimin way ogolaatay waxay tiri inni dhalamtu nafsi wa aslamtu ma'a Sulaymana lillahi rabbil alamin marka dadka muslimiinta waxa la rabaa hadafka ay u socdaan inuu soo cad yahay adduunkan waxaan u joognaa inaan sharciga Ilaahay hirgelino diinta Ilaahay inaan ku dhaqanno caalamka inaan muslimiin ugu yeerno muslimiinta inaan ku dhaqanno sidaas inay noqoto oo mabaadi iyo ummadu meesha u socoto in la fahmo qofkii intaas ka soka ku soo dhaca wuxuu noqonayaa qof bilaash ah ama cabsanaya ama maslaxa gaar ah fiirinaya ama meesha loo socdo aan garanaynin ama madluumka iyo daalimka aan kala garanaynin qiyamkii akhlaaqda ayaa dadka ka baaba'ay marka sayna saa u noqonin ayaa waxaan soo qaadanay qiyamka inaan ilaashano mabaadi inaan lahaano diinteen inaan kor yeelno يعني sidaas inaan u ahana dad sugnaaday nabiga sallallahu alayhi wasallam ducooyinka ugu badan ee uu ku ducaysan jiray waxa kamid ah Allahumma ya muqallib alqulubi thabbit qalbi ala diinik ilaahu diinta igu sug maxanka iyo shadaadu markay dhacaan dad badan ayaa diinta la garab mariya dad badan ayaa mabaadidooda ka tanaasula cabsi ama damac ay damcayaan waxyaabo kale oo lagu laaluushaayo laakiin waxa liibaan oo taariikhda gala dadka asxaabul mabaadida la yiraahdo ee aan marna ka tanaasulin wadada ay jeexdeen oo ah diinta islaamka inay qaateen qof inuu qasmay ma jiro diintan qaadashadeeda inaga ayaa dooranay islaamnimaduna sidaas ay sheegaysaa waxa la rabaa qof kasto sida ilaahay uu yiri fala tamuutunna illa wa antum muslimun idinko muslimo tii rabaa idin timaado sidaas ay isku ogyahay hadii liis cadaadiyo soo caga jugleeyo saalayeero wax laga qaadayo male waxaan ku soo gabagaynaa xigmadii imaam ibn taymiya uu yiri oo ahayd maxaa la iga qaadi karaa waa qof muuminu matalaya qofka muuminka maxaa laga qaadaya wuxuu hadii la idilo waa shahaado in qatli shahaada hadii la xiro waa khaali ahaansho oo quraankan iska akhrisanaya oo magaaladii iyo dibkeedii baaba la iga xabisay waa khalwatun ilaahay baan la khaal noqonayo oo waan wardinayo oo quraanka aan akhrisanaa hadii la xirana ونفي هدي لي مسافريه او ودما كلا برغي مسافرين جير ميل كان لا يديرنا سياحه وادل حيسو ده ما لها سبري او دغالدينا ميل ka socdeen maraan dhaawacmay aniga masaajidka iga soo ducaynayeen ya waxaan ku daray hal kelimo oo ahayd